السلام عليكم أحبابي ميل والبأجوتان وادين سلامي وولاشينا تتورسجيا موقالكينا مانتا waxaan uga hadleynaa walwalka iyo saameynta uu ku leeyahay habdhiska difaaca jirka. inta aanan muuqaalkan u guda galin fadlan like, comment, subscribe. walwalka badana waxa uu qofka ka dhigaa mid bukaan jiif ah, laakiin waxa arintaa isku soo howlay saynisyaano Mareykan ah waxayna daraasad ay ku sameeyeen ku xaqiijiyeen doorka walwalka uu ka ciyaarayo in waxyeelo soo gaadho habdhiska difaaca jirka. waxay sidoo kale cilmi baaristooda daaha ay uga qaadeen doorka uu naxdinta ka qaato xanuunka jirka. waxaa ka mid ah wadna xanuunka iyo muruqa xanuunka rheumatismka loo yaqaano. saynisyahanada Mareykanka ah ayaa waxay weydiiyeen 176 qofood oo rag iyo dumar isugu jira oo ay baaritaan ku sameeyeen dhibaatooyinka kala kulmeen 12 bilood ee la soo dhaafay. markuu qofku ku jiro xaalad walwal ah, unugyada habdhiska difaaca jirka ma awoodaan in ay ka qayb qaataan xakameynta hormoonada, waxayna si aan joogsi lahayn u soo saaraysaa xaalad sababi karta cudur. fadlan haddii aad tahay qof carab badan ama walwal badan ama fikir badan, fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad iska yareyso, waayo xaalad nafsiyan ama caafimaad ahaan waxay u keenaysaa problem ama dhibaato.